wasiirka diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa xariga waxa uu ka jaray masjid jaamaca loogu magac daray Bilaal ee magaalada Jowhar oo dhismihiisu ay ka qayb qaateen dad Soomaaliyeed. wariyaheena Ibrahim Cali Nuur ayaa warka noo soo diray. waxaa maanta si rasmi ah xariga looga jaray masjidka Bilaal oo dhismihiisu socday 15 bilood isla markaana ay ku baxday lacag ka badan $5 milyan. masjidkan oo ka kooban ilaa dhowr dabaq qarash ku baxay intiisa badan waxaa bixiyay qurba joogta Soomaaliyeed ee ku nool dalka dibadiisa waxaana muddadaasi gacanta ku hayay gudi isku xilqaamay dhismaha masjidka. furitaanka xafladda xariga looga jaray masjidka Bilaal waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabelle iyo culimada ku dhaqan magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle. waxa ugu horeyn goobta ka hadlay gudiga gacanta ku hayay dhismaha masjidka iyo injineerkii dhisay. waxa uu istaagay runtii dad muxsiniin ah. masaajidkan waxaa dhistay Soomaali shilin kale meel nooga yimid ma jirto oo aan ahayn ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. haddii aan sii kala qaado percentage-ka boqolkiiba 90 masaajidkan waxaa dhisay walaalaha Soomaaliyeed ee qurba joogta ah oo muxsiniinta ah. boqolkiiba 10 local waa wadanka. waxaan bilownay May 10-keedii waxaana masaajidkan dhameynay May 10-keedii 2020 waxaan dhameynay July 20 2021. alxamdulillah thumma alxamdulillah. masaajidka abrisin cabirkiisa wuxuu dhan yahay 300 oo mitir square u dhiganta 20 lagu dhifto 15 laakiin aan afargees ahayn rabca waaye 300 mitir square waaye. masaajidku wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood. qaybta hadda taagannahay oo hooseed iyo 2 qayb kale oo kore. dhinaca kale Abukar iyo wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Hirshabelle xildhibaan Abukar Cali Maqaney oo goobta ka hadlay waxay sheegeen in masjidkan uu yahay mid kudayasho mudan isla markaana si casri ah loo dhisay taasi oo daliil u ah in gudiga ay ku guuleysteen muddada dhismahaasi gacanta ay ku hayeen. runtii munaasabadan oo ah munaasabad aad u qiimo badan oo sharaf badan xafladaha laga qayb galo. ilaaha naga dhigay kuwa nasiibku u yeeshay in masjidkan ilaahay dartiis loo dhisay furitaankiisa ka soo qayb galno. wa anna al-masaajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahadan. qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam man bana lillahi masjidan bana allahu baytan fil jannah oo kama qaala. runtii dhammaanteen ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu ajri xasanaad naga siiyo xafladan furitaanka kuwii ku cibaadaysan ilaahay naga dhigo masjidkan aadka u quruxda badan. waxaa sharaf weyn u ah dadka ku nool magaalada Jowhar maanta oo ay taariikhdu tahay 5 bisha Muharram sanada 1443 hijriya oo waafaqsan 13 bisha August sanadka 2021 miilaadiya in maanta magaalada Jowhar laga furo masjid aad u qurux badan oo loogu magac daray saxaabigii weynaa jaliilka ahaa Bilaal loogu magac daray. masaajidkan dhismihiisa waxaa ka qayb qaatay dad muxsiniin ah oo reer Jowhar ah oo u badan dadkii dibadaha jiray iyo dadkii gudaha joogayba ayaa ka qayb qaatay dhismihiisa. ilaahay ajri xasanaad dhammaanayn ha ka siiyo. Ibrahim Cali Nuur, TV Universal, Jowhar.